filimkan waxa uu ku bilaabanayaa iyadoo oo lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida ayaa diyaarad dagaal oo laga leeyahay Mareykanka waxa isla saarnaa askari la yiraahdo Lowy iyo saaxiibadiisa shaqada ciidanimo kula jira kuwaas oo loo diray shaqo ah in ay qarxiyaan jasiirad kamid ah jasiiradaha Japan markii ay jasiiradii u soo dhawaadeen oo qoliyaha gantaal ridayaasha diyaaraddu isu diyaarinayaan in ay ridaan ayaa waxa weerar ay kala kulmeen diyaaradihii Japanka markaas ayaa ay arkeen in diyaaradoodii la taarget gareeyay markaas ayaa ay jasiiradii ku tuureen gantaaladii ay sideen sidoo kalena iska caabiyeen diyaaradii weerarka ahayd inkasta oo diyaaradoodu dhaawac la gaarsiiyay nasiib wanaagna duuliyihii diyaaraddu si nabadgelyo ah ayuu ku soo dajiyay diyaaradda inkasta oo xawaarihii sareeyay ay ku soconaysay uu qarxiyay taayiradii diyaaradda filimku waxa uu dib inoogu celinayaa Master Lowy yaraantiisii waqtigii yaraantiisii waxa uuna ahaa dhiblow heer isaga oo aad u daayar aan arkayno isaga oo cabaya khamro iyo sigaar sidoo kale caruurtii xaafadooda ayuu kala kulmayaa in ay faquuqaan oo ay takooraan maadaama asalkiisa uu ka soo jeedo Talyaani markii uu damcay inuu iska dhiciyo ciyaalkii waxa ka qabanaya nin booliis ah waxa uu keenayaa qoyskiisa aad ayayna qoyskiisu u canaananayaan maalin kale ayaan arkaynaa isaga oo u ordaya si xalad leh waxa aad u la cajabaya walaalkiis ka weyn oo u jeeday waxa uu go'aansanayaa inuu ku dhiirigeliyo inuu ka qayb galo ciyaaraha Olombikada orodada balse Lowy ayaa ka diidaya walaalkiis ayaana ku oranaya waxaan aaminsanahay haddii aad ciyaarahaas ku biirtid in aad kaalin weyn ka geysan doontid waxa uuna walaalkiis ku tababaraya orodka Lowyna waa uu weynaanayaa waxa uuna ugu dambeyn noqonayaa ciyaaryahanka ugu dheereeya Mareykanka oo dhan sidaas darteedna waxa uu noqonayaa mid ku matala wadankiisa Mareykanka ciyaarihii orodada ee lagu qabtay wadanka Jarmalka gaar ahaan caasimadiisa Berlin guushiina dhammaan dadka Mareykanka iyo gaar ahaan faamilkiisu waxay kala soconayaan raadiyaha inta kadibna waxa uu ku biirayaa ciidamada Mareykanka isaga oo maalinta tababarkiisii orodka isaga jira ayaa waxa uu ogaanayaa in hawlgal khatar ah naftiisuna uu ku waayi karo loo doortay in uu fuliyo hawlgalkii isaga oo ku jira ayaan arkaynaa in diyaaradii ay ku hawlgalayeen oo hawada sare ku kharaabtay matooradeedii ayaa duqeeyay kadibna badda ay ku soo dhacaysaa waxaana ciidankii saarnaa ka soo badbaadaya Lowy Marcus iyo askari kale waxayna helayaan buufimaha laashashka badbaadada ah taas ay maalmo badan ku dul sabaynayaan badda waxayna quudanayaan kalluunka shimbiraha meeshooda ugu yimaada xitaa libaxbadeed ay ugaarsanayaan oo ay cunayaan siday maalmo iyo habeen badan u dul sabaynayeen badda ayaa habeen waxa ku kacaya roob duufaan wata markaas ayay ka cabayaan biyaha roobka subaxnimadiina ayay waxay arkayaan diyaarad hawada socota waxayna u maleynayaan diyaarad Mareykan ah balse waxay ahayd diyaarad Japan ku leeyihiin way u dhawaaqayaan wayna u gacan haatinayaan waxayna ku firdhinaysaa xabado iyaguna badda ay dhexgalayaan si ay isaga qariyaan diyaaradaas sidaas ayayna uga badbaadayaan inkasta oo Marcus uu dhaawac ka soo gaaray ayaama badan kadibna Marcus ayaa dhaawacii u geeriyoonaya iyaga oo wali badda dul sabaynaya ayaa ugu dambeyn waxa badbaadinaya markab ay wateen ciidamada Japan waxaana labadoodii la geeyay mid kamid ah jasiiradihii Japan waxa ayna ku khasbayaan in ay macluumaad badan ka siiyaan awoodda iyo hubka ay wataan ciidamada Mareykanku Lowyna waxa uu ugu jawaabayaa waxay wataan hub duug ah kadib waxa la keenayaa barxad waxaana lagu amrayaa in ay dharka siibaan waxa uu Lowy u maleeyayaa in isaga iyo saaxiibkiisa la daldalayo balse lama daldalin biyo qabow ayaa jirka looga shubay si ay nadiif u noqdaan waa la soo qaadayaa waxaana la keenayaa meel kale oo ay joogeen maxaabiis Mareykan ah Lowy ayaa waxa indhihiisa ka baqaya askarigii xukumayay meesha maxaabiista waxa uu ku dhufanayaa ushiisa waxaana sankiisa ka imaanaya dhiig Lowyna waxay meesha iska baranayaan askartii Mareykanka ahaa ee maxaabiista ahayd maalinkii labaad waxay askarta Japan ku maxaabiista Mareykanka ku khasbeen inay u rukuucaan calanka Japan iyaga oo uga dan lahaa in ay jabiyaan qabkooda markii ay u sameynayeen jimicsiga subaxnimo ee maxaabiista ayaa sargaalkii maxaabiistu waxa uu yiri waxa idinku jira dad hiba leh sida orodyahankii Olombikada ee aaway orodyahankaasi kadibna Lowy ay banaanka u soo saarayaan waxayna la tartansiiyeen askari Japan ah balse Lowy dhulka ayuu ku dhacayaa maadaama jirdil iyo gaajo isugu darsanaayeen aadna u daalanaa kadibna ul ay la dhacayaan habeenkiina Lowy waxa uu ogaanayaa
in xulufadii Jabaanka iyo Jarmalka ka soo horjeeday ay guuleysteen waayo waxa ay soo weerareen xulufadiisu jasiiradda Jabaan taas oo ka dhigan guushooda uuna dhoola cadeyn kari waayay maadaama wajigiisa nabar wada noqday. habeenkii xigay ayaa sargaalkii xabsigu arkaya warqad jarjaran oo lagu sawiray goobta ay maxaabiistu joogaan. waxa uuna sargaalkan oo la yiraahdo Otabi jirdilaya maxbuuskii uu ka helay askarigaas ayaa habeenkaas la jirdilay. waxa uu loogu sheegay arrinka kaliya ay uga aarsan karaan askarta Jabaanka in ay tahay in ay naftooda ilaaliyaan dagaalkuna dhamaado iyaga oo aan dhiman. waxaan kale oo aan arkaynaa Lowi oo habeen kale uu garaacayo sargaal Otabi iyada oo aysan jirin sabab uu ku mutaystay. muddo kadib ayaa Lowi waxa la siinayaa fursad uu kula hadli karo qoyskiisa oo rumaysan inuu dagaalka ku geeriyooday in uu la hadlo oo uu sheego noloshiisa. waxayna u qorayaan hadalkii uu raadiyaha ka oran lahaa oo ah inuu nool yahay, maxbuus dagaalna yahay, nabadna qabo, joogana caasimadda Jabaan ee Tokyo. waxaan arkaynaa Lowi oo ku cuntaynaya meherad cunto. waxa uuna arkayaa nimankii raadiyaha uu ka hadlayay u soo kaxeeyay waxayna u dhiibayaan warqad ay ku qoran tahay awoodda Jabaan iyo guuldarrada Mareykanka oo waxay rabaan inuu raadiyaha ka sheego warqadaas oo uu akhriyo si niyad ahaan Mareykanku u jabaan. waana uu ka diiday. waxa uuna yidhi ma khiyaamayo dalkayga. waxay tusayaan maxaabiis hore oo wadankooda sidaas u khiyaamay degan hotel meheradana ka cunteeya dhar qurxoon xiran. waxayna u sheegeen haddii uu sidaas sameeyo inuu ka baxayo noloshii ciqaabta ahayd ee jeelka, noloshan macaanna uu geli doono. Lowina waxa uu ku adkaysanayaa go'aankiisa waxaana dib loogu soo celinayaa xabsigii. sargaalkii xabsiga haystay ee Otabi ayaa ku oranaya Lowi labadeenu waxaan nahay rag mayal adag. waxaana uu amrayaa ciidamada in ay ciqaabaan oo ay baraan habka wax loo ixtiraamo. waxaana la amrayaa sidoo kale maxaabiista oo dhami feer inay wajiga kaga dhuftaan. mid ka mid ayaa diidaya aad ayaana loo jirdilayaa. waxa uuna oranayaa diyaar baan u ahay inaad feerka igu dhufataan. dhammaanna feer bay ku wada dhufanayaan iyaga oo ka xun. maalin iyada oo maxaabiistu dhiganayaan riwaayad ku saabsan Cinderella ayaa sargaalkii Otabi waxa uu ku leeyahay Lowi laba war ayaan ku hayaa, midna farxad yahay midna naxdin. midka farxadda ah waa in aan aniga la idilacsiiyay, warka murugada ahna waa inaan meesha ka tagayo. waxa uuna ka codsanayaa in uu Lowi u hambaliyeeyo balse hal kelmad kuma soo celinayo. habeenkiina waxay ku farxayaan maxaabiistu in Otabi laga bedelay. waxaase isla habeenkaas meeshii ay joogeen agaarkeeda soo weeraraya diyaaradihii dagaalka ee Mareykanka. waxaana qumbulada ay ku dhacaysaa jeelkoodii. qayb ayaana ololaysa waxayna ka qayb qaadanayaan damintiisa. mid ka mid ah maxaabiista ayaa waxa uu oranayaa anigu kuma faraxsani in xulufadu halkan soo gaaraan waayo haddii xulufadu dagaalka ku guuleystaan in dhammaanteen ayna dili doonaan Jabaanku. maxaabiistuna aad ayay u cabsanayaan. subaxnimadiina maxaabiista waxaa kaloo loo rarayaa jeel kale. intay jidka sii socdeen waxay arkayaan guryo burburay iyo meydad. waxaana sidaas u galay habeennimadii diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. markii ay yimaadeen jeelkii loo waday waxay arkayaan maxaabiis la jirdilayo oo si xun loogu xamaalanayo. subaxnimadii xigtay Lowi oo taagan safka ayaa dhulka ku dhacaya tabardarro awgeed. waxaana meeshan madax ka ah sargaalkii Otabi. waxa uuna leeyahay halkan maxaabiistu waxay raraan dhuxul dhagaxda waana shaqadooda. qofkii aan shaqadaas qabanna waa la dili doonaa. waxaana uu Lowi ka walwalayaa dhibaatada xabsigan cusub ka dhex jirta. habeenkiina maxaabiistu waxay soo galayaan meesha ay seexanayeen iyagoo aad uga xun sargaalkii arxanka darnaa ee meeshan madaxda ka ahaa. maalinkii xigay iyagoo xamaalaya ayaa nin ka mid ah maxaabiista waxa uu ka dhacayaa jaranjaro waana uu dhimanayaa iyadoo ay sabab u tahay gaajada iyo dhibka meesha yaala. iyagoo ka shaqaynaya dhisidda doon ayaa waxa ay u imaanaya Otabi waxaana u sheegayaa inuu dhintay madaxweynihii Mareykanka dagaalka hogaaminayay. mid ka mid ah maxaabiista ayaa waxa uu la ooyayaa quus uu warkaasi gaarsiiyay. muddo kadib maxaabiistii oo xamaal ku jirta ayaa askari Jabaan ah Lowi ku tuuraya meel uu saarnaa. dhulka ayuu ku dhacayaa lug ayaana murugacanaysa. waxa uuna la qayrinayaa xanuun dartiis. habeenkiina markii la gaaray mid ka mid ah maxaabiista ayaa Lowi weydiinaya inuu caafimaad qabo balse Lowi uma jawaabayo. maalin kale ayaa Lowi ciqaab waxa looga dhigayaa inuu alwaax culus kor u qaado oo uusan hoos u dejin. waxaana loo qaybinayaa askari Jabaan ah haddii uu alwaaxaas dhulka dhigana in xabad lagu dhufan doono. waxa uuna muujinayaa awood iyo geesinimo waxaana indhihiisa ka muuqanaysa dhiiranaan iyo awood. maxaabiista ayaa waxay aad ugu farxayaan awoodda uu leeyahay Mr. Lowi. Otabi ayaana amraya in si xoog ah loo garaaco Lowi.
Otaabi ayaa ku daalaya dilkii Lowi, dhulka ayuuna jilbaha dhigayaa, afkana kor u taagayaa, waxa uuna amrayaa in qof kasta hawshiisa qabsado. Lowina waxa uu waayayaa miyirka habeenkii oo dhan, isagoo oo miyir la ayuu meeshaas jiifayaa. Subaxnimadii markii safka la istaajiyay maxaabiista waxaa loo sheegayaa inuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida, waxaana sargaalka warka sheegay amraya in ay biyaha webiga kusoo qoystaan, waxayna u malaynayaan in markii ay webiga galaan xabado lagu furi doono lana layn doono. iyaga oo sugaya geeridooda waxay arkayaan diyaarad Mareykan ah oo korkooda maraysa, waxayna ogaanayaan in run ahaan in dagaalkii dhammaaday. aad ayayna u xafladaysanayaan, waxayna diyaaradii usoo daadinaysaa shukulaatooyin, joornaalo, sigaaro iyo wax la mid ah iyo cuntooyin fiican. Lowi waxa uu imaanayaa xafiiskii Otaabi, waana uu waayayaa, waxa uuna arkayaa sawirkii Otaabi oo yar iyo aabihiis. Lowi waxa uu ku laabanayaa Mareykanka jacayl wadaniyeed dartiisna, waxa uu ku sujuudayaa dhulka, waxaana soo dhaweynaya jabaahiir dad ah maadaama qisadiisu aad u faaftay. Aabihi ayaana laabta gelinaya, waayo muddo badan ayay kala maqnaayeen. filimkan waxaa laga soo manguuriyay qiso dhab ah. Lowina waxa uu guursaday gabadh ay isjeclaayeen, waana uu aroostay, waxayna xaaskiisu u dhalaysaa gabar. Lowina waxa uu cafinayaa dhammaan ciidamadii Jabaanka ee ciqaabay oo uu ku jiro Otaabi iyo askartii kaleba. waxa uuna filimku ku dhamaanayaa muuqaalka Lowigii dhabta ahaa, isaga oo oday ah, da'diisuna tahay 80 sano, waxa uuna xaqiijinayaa riyadiisa orodka. ugu dambeyn filimkan waxaa qoray Cabdulaahi Cabdikariim, waxaana soo saaray Cabdulaahi Case, waana isku mid labadoodu. khayaaray subscribe-ta naga ilaawnina, like-ta wax weyn bay noo taraysaa. filimkana la wadaag ugu yaraan 3 qof oo aad la jeceshahay in ay iyagu daawadaan. mahadsanid.